booqasho waliba qaran oo madaxweynaha iyo wafdigiisa oo anigu aan kamid ahaa aan ku tagnay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya xarunta dalka Itoobiya ayaan rabaa inaan yar idinkaga warramo waxay ahayd booqashadaasi mid runtii lagu tilmaami karo inay baal cusub u furi karto xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee dariska ah soo dhaweyn markii ugu horeysay aan u maleynay inay tahay heerkaas ahayd ayaa magaalada Addis Ababa loogu sameeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa halkaas isugu soo baxay oo yimid mas'uuliyiin badan oo horkacayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayna kamid ahaayeen wasiiro iyo mas'uuliyiin kale waxa la safay ciidanka salaan sharafta oo halkaas salaan madaxweynuhu uga qaatay isla markaana markaa kadib salaanta labada calan ay ku qaateen labada mas'uul waxa la keenay kooxaha fanaaniinta ah ee gaar ahaan xagga hidaha iyo dhaqanka marka soo dhaweyn xoog leh ayaa airportka loogu sameeyay kadibna waxa la safay calamada labada dal ee magaalada wadooyinka waaweyn oo dhan lagu qurxiyay socdaal qaatay muddo ka yar 24 saacadood oo ahaa booqasho rasmi ah ama booqasho waliba qaran oo madaxweynaha iyo wafdigiisa oo anigu aan kamid ahaa aan ku tagnay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya xarunta dalka Itoobiya ayaan rabaa inaan yar idinkaga warramo waxay ahayd booqashadaasi mid runtii lagu tilmaami karo inay baal cusub u furi karto xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee dariska ah soo dhaweyn markii ugu horeysay aan u maleynay inay tahay heerkaas ahayd ayaa magaalada Addis Ababa loogu sameeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa halkaas isugu soo baxay oo yimid mas'uuliyiin badan oo horkacayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayna kamid ahaayeen wasiiro iyo mas'uuliyiin kale waxa la safay ciidanka salaan sharafta oo halkaas salaan madaxweynuhu uga qaatay isla markaana markaa kadib salaanta labada calan ay ku qaateen labada mas'uul waxa la keenay kooxaha fanaaniinta ah ee gaar ahaan xagga hidaha iyo dhaqanka marka soo dhaweyn xoog leh ayaa airportka loogu sameeyay kadibna waxa la safay calamada labada dal ee magaalada wadooyinka waaweyn oo dhan lagu qurxiyay kadibna isla maalintii baan tagnay halkaas wada hadal ayaa dhex maray wafdiga madaxweynuhu hogaaminayay iyo mas'uuliyiin Itoobiyana oo hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya mahadcelin kadib sida naloo soo dhaweeyay iyo mahadcelin kaalinta AMISOM ay ka qaataan ciidamada Itoobiya waxa la gudagalay wada hadal ku saabsan xiriirka labada dal qodobo fara badan ayaa la isla soo qaaday waxayna ahaayeen qodobo runtii intii la isku soo qaaday oo dhan isafgarad laga gaaray arrimaha la isla soo qaaday oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu afkiisa ka sheegay wada hadalka kadib saxaafadda uu sheegay waxa kamid ah in uu aqoonsan yahay garan yahayna in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay mas'uulka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda amniga socdaalka iyo dhaqaalaha arrimaha ku saabsan sida darteedna dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay Itoobiya kala xaajoonayso wixii arrimaha ku saabsan ee Soomaaliya dhinaceeda ah waxa laga wada hadlay arrimaha biyaha iyo gaar ahaan webiga Shabeelle waxaana la isla gartay in guddi farsamo Soomaaliya ay dirsato oo labada dhinac guddi farsamo u saaraan si arrintaas loo arko haddii ay wax ka qabad u baahan tahayna dib loogu laabto wax looga qabto ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ballan qaaday in 500 oo deeq waxbarasho ah uu siinayo ardayda Soomaalida taas oo isugu jirta shahaadooyinka kala duwan ee jaamacadda oo ilaa shahaadada PhD ee ugu sarreysa leh arrimaha kale laga wada hadlay waxa kamid ahaa waxa wafdiga madaxweynaha Soomaaliya kamid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka soo jeeda ama laga soo doortay deegaanada la teedsan soohlinta u dhaxaysa labada dal oo taasna markaa dhinaca kale Itoobiya ay noqonayso in ay soohlin la leeyihiin dhinaca Soomaalida ee Itoobiya markaasna waxay halkaas wada hadal ku galeen madaxweynaha gobolka Soomaalida Itoobiya halkaas oo ay uga wada hadleen dhibaatooyinka xagga amniga ah xagga socdaalka ah xagga ganacsiga ah ee labada dhinac ugu dambeyntiina waxay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya isku afgarteen in la dhiso guddi isku dhaf ah oo labada dhinac ah oo ay hogaaminayaan labada wasaarad arrimo dibadeed ee labada dawladood
kuwaasoo si joogto ah u kulmi doona kana shaqayn doona meelmarinta waxyaabihii laysku afgartay hadda ka soo baxay socdaalkan aakhirkiina saaka ayaan ka soo ambabaxnay magaalada addis ababa halkaas oo mar kale uu ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo wasiiradiisu ay yimaadeen oo ay nagu soo sagootiyeen runtiina ay noo muujiyeen maaragtay kalsooni iyo qalbi furnaan ay noo muujiyeen annaguna aan si xoog leh uga mahad celinay aan aaminsannahayna inuu yahay bilow wanaagsan oo xukuumaddan iyo dowladdan cusub ee madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre in ay baal cusub xiriirka u furi doonaan labada dhinac wax badanna laysla qabsan doono maadaama labada dal ee etoobiya iyo soomaaliya ama soomaaliya iyo etoobiya ay yihiin laba dal oo aad iyo aad danahooda amni iyo dhaqaale iyo horumar ay aad isu khuseeyaan oo ay isku xiran yihiin wax badanna ay ka dhexeeyaan gaar ahaan xagga dadka soomaalida ah labada dhinac ba jira waad mahadsantihi saaxiib waxaan rabaa in hal su'aal kaa weydiiyo arrinta socdaalkiina waxaan hadda soo hadal qaaday arrinta ku saabsan ciidamada amisom oo inuu uga mahad celiyo kaalinta ay ka qaataan etoobiya amisom waxaan ognahay marka laga hadlo dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya etoobiya ciidamadoodu mar kasta waxay galaan magaalo shabaabku ay maamulaan marka ay qabtaanna dib ay uga baxaan iyadoon ciidamo soomaaliya la soconin dhowr magaalo ayay qabteen oo iyagu gacantay ku dhigeen ay dib uga laabteen ma kala hadasheen etoobiya in dhacdooyinka noocaas oo kale ay joojiyaan ciidamadooda ama aanay soo laaban dabcan tafaasiil hoose oo details badan ah lama gelin arrinta waxay ahayd labadan dowlad in ay wada shaqayn yeeshaan iyo in arrimaha laga hadlo dabcan dhinac walbana waxyaabaha jira guud ahaan waa laga hadlay amniga waa inaan fahamnaa amniga soomaaliya cidda sugi karta ama mas-uuliyaddeeda leh waa dowladda soomaalida ciidamada kale gacan ayayna siin karaan kama fili karno inay magaalo noo qabtaan oo noo hayaan abidkeed marka waxa weeye ciidamadeenna soomaalida ayaa loo diyaarinayaa inay dhulka qabtaan meelihii aysan markaa qaban karin oo aanay taag u hayna in ciidamada shisheeye ay qabtaan laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamada soomaalidu la wareegaan deegaankaas oo ay ayagu gacanta ku dhigaan qorshayaal badan oo xagga amniga ah oo amisom iyo dowladda soomaalida ka dhexeeya oo dhowaan lagu dhaqaaqi doonana waa waxa aad heli doontaan marka waqtigooda soo baxa haddii la yidhaahdo